iyadoo lagu jiro ololaha doorashada madaxtinimada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani saaka aroornimadii hore waxa ay isugu soo baxeen xafiisyada kala duwan ee ay ku leeyihiin degmada Garadag ee gobolka Sanaag. Taageerayaashan oo ay gashay maalintoodii lixaad ee ololaha campaign-ka kuna labisnaa calanka muuqa dheer astaanta oo xisbiga iyo boodhar iyo halkudhigyo ay ku taageerayaan musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa isu soo baxay shacabaad u tiro badan kuwaasoo dabaaldeg dheer oo lug iyo gaadiid bale ku soo maray shaaracyada magaalada. Gabagabadiina waxay isugu biyashubteen fagaaraha qayriyada geedka nabadda halkaas ay mas'uuliyiinta xisbiga kala hadlayeen bulshada taageerta xisbigaasi, waxayna taageerayaashooda kula dardaarmeen ololaha oo gabagaba inay sii laabaan cududda ay u hayaan xisbiga wadani codkoodana ugu hiiliyaan. waxaana ka mid ahaa hadaladoodii waxay yiraahdaan marka muusada wuxuu yimaado 13 kula kaarbo waan ku haynaa haddana wuxuu dareemayaa wuxuu arkay maalin walba isu soo baxa reer wadani degmada Garada ka sameeyaan agiisu ku yimi indhihiisu ku arkay wuxuu weydiiyay 13 kul meesha yaalaa buu weydiiyay 13 waaysa miro ilaalihiino odaygiyo wax kasta arkaya ويرانا صدق توكي وراينا ولي وبيت يداي وي ولا بيناين waxa wanaay wasada ya tobanka ku garada ka dhacay dadkaas baar ka mid ahay miyada ka mid ahay dadka ugu badan miyada ahay dadkaas baar been sheegi waxa wada odaga halu goynina wadani dadkayga iyo shacabkayga waanu ilaashanaa dhiigooda iyo dhididkooda iyo awoodooda kula ciyaarno. waa arkaysaa shalay toole wixii magaalada ka dhacay aad iyo aad baan uga xunnahay oo weyn dadka ku dhiig baxay ee ku dhidid baxay shalay toole soo dhawayntii ay doonayeen soo dhaweeyeen musabbixi laakiin musabbixi ilaahay baa gudisay doonaysa inay soo dhaweysaan ilaahay baa gudiyay anaga aad iyo aad la saaray ee kooda tobankii haweeney la yiri waxa la yidhi iska kala taga aad iyo aad baan uga xunnahay. waxaa la yiri haddaad meel lagaa jecel yahay ka tagto meel lagaa neceb yahay waa tagtaa. anaga ay socon anaga ay dooranayna anaga ay soo dhaweynayna anaga beeni sheegay markay weydiiyeen qolada madaxda xisbiga kulmiye ka tirsan degmada ka tirsan waxay dhahaan tolo muhiim soo socda tolo madaxtooyaha maraya hadda dadkii weydiinayaan iyagana ka mas'uula rabaana kuwa aanu baxaynayna waad noqonay ama kuwa aanu haraarayna noqonayna qaarna waa abaarna qaarna waanu ducaynaa xaaji maxamed ibraahim xigaal wuu ducaynaynaa abaal buu nagu leeyahay ilaahay jannadii ha ka waraaba. hadhow marka la xisaabtamo ee codku dhaco ee codadka la tiriyo waa la xisaabtamayaa dib waa loo xisaabtamayaa. gobol waliba wuxuu soo saaray degmo waliba waxay keentay tuulo waliba waxay keentay waa la xisaabtamayaa. reer Garadagow karta baa lagu jira wax layla kala dheeray orodse maahee waxaan leeyahay waa la xisaabtamayaa. waxqabadku xisaab buu ku imanaya waxqabadka laynoo qabanaya xisaab buu ku imanayaa. gujiga dishanka xiran waxa xilligii aynu ballanay waxba kama hadhin haddii Allah awood u ogolaado muddo yar oo cayiman ayaa ka hadhay mawd baa ka sokeeya muddadu waa iska imanaysaa wixii ilaahay gaarsiiyo dadku mar wada dhiman maaye wax yar baa ka hadhay. waxaynoo ballana 13 November waynu ballan waxaynu ku ballannay codkeena iyo cududeenna iyo taageeradeenna iyo awoodeenna inaynu ku muujinno oo siino oo ka dhex muuqanno xisbiga wadani soo sidaa ma aha wadani guul gabagabadiina waxaa munaasabada khudbadaasi soo xidhay xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani. buurama waa laga adkaaday hargeysa waa laga adkaaday berberi waa bareejo qur'aana wax weeye wadani baa ku adag meesha la dhaho asxaabadii argagaxo wadani baa ku adag. marka sidaas uu leeyahay oo rag badan ku hadlayo Soomaaliyu laga wada xisbigaasi waa Soomaaliya waa horta Soomaaliland ciidamo kale leh qofka ma Soomaaliland darsana taxamad ninka dan soo waxiyo buuga xisbiga la dhaho Abdulsalaam Ismaaciil Sawatan saytu wuxuu tagay madaxweynaha Soomaaliya buugu akhriyay ma qaano buuga xisbiga waxaana aqoonay buugii Soomaaliya ayuu akhriyay buuga dadka uu akhriyo waa buugii Soomaaliya hadii Soomaaliya leeyahay wax madaxweyne isu sharaxay inuu ku jiro kulliya tirma beenba. Faraxa Cabdi Nuur, telefishinka caalamiga ee Home Cable TV, magaalada Garadag.